maanta waa 20 November 2023 bishii November waa maalin loo asteeyay in lagu xuso lagu weynaysiiyo maalinta carruurta adduunka waa maalin u gaar ah oo caalamka iyo qaramada midoobay 1904 la garteen in la ilaaliyo oo la daryeelo oo loo qoondeeyo maalinta caalamka ah ama maalinta caalamiga carruurta adduunka waa maalin u gaar ah in carruurteena xuquuqiyaadkeega la ilaaliyo sida ka muuqata boorka wuxuu sheegayaa boorkaasi in ilmo kasta uu leeyahay xuquuq kasta markaa xeerku siiyey diintu siisay waddankeenu siiyey waxa aad wax loogu mahadnaqaa oo ilaahay ugu mahadnaqayna in inagu aynu nahay dad muslima oo ku dhaqma shareecada islaamka markaa maanta maalintii carruurta adduunka maadaamay tahay waxaan hambalyo u dirayaa carruurta Somaliland oo dhan carruurta gobolka saaxil carruurta reer berbera waxaan leeyahay maalin wanaagsan ilaahay caafimaad iyo cimri dheer ha nagu gaarsiiyo maalmo kale oo badan waxaan kale aad ugu mahadnaqayaa carruurta maanta noo timid oo runtii aan la qaybsanayo farxaddooda waa maalinta badan la ballaadhiyo in la qaybsado farxadda caqabadaha haysta laga doodo kor loo qaado xuquuqda ay xaq ugu leeyihiin waalidka ka dawladda iyo cid kasta markaa ka shaqeysa arrimaha carruurta waxa ilaahay loogu mahadnaqa waxa oo aad maanta guul noo ah in wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha bulshadu ay diyaarisay xeerkii carruurta oo soo baxay sanadkan wada guulaha sanadkan aynu gaarnay ka wasaarad ahaan xeerkaasoo damaanad qaadaya ilaalinta iyo daryeelka carruurta oo nooc kasta leh kuwa naafada kuwa xanuunsanaya markaa xeerkaas wuxuu xoogga saarayaa waa daryeelka guud ee carruurta ilmo kasta waxaan aad ugu salaamayaa oo aad markaa salaam qiimo badan iga sida wasiirka wasaaradda shaqooyinka oo isna aad ni hambalyeynaya oo aad ugu soo hambalyeynaya carruurta gobolka saaxil carruurta reer berbera oo fariin qiimo badan ka soo diray Hargeysa isaguna hawsha ay ka wadaan waxaan iga sida hambalyada isagii wasaaradda oo dhan agaasimaha guud wasiirka shaqaalaha wasaaradda waxayna la wadaagayaan maalinta carruurta adduunka oo inay leeyihiin hambalyo sidoo kale maalinta waa maalin caalamiya maanta waxa farxad ah in carruurta Hargeysa iyo carruurta gobolada kaleba la geeyay gobolada ama goobaha dawladdu maamusho maanta carruurta Hargeysa waxa lagu casuumay golaha baarlamaanka markaa ujeedadu waxa weeyaan in xuquuqiyaadka ay leeyihiin halkaa waxay ka weydiiyaan dadka mas'uuliyiinta markaa waxaan diyaar u nahay ka wasaar ahaan wixii aad tabaysaan mar walba aadna weydiisaan si aan uga jawaabno si wixii la qabtayna waxa weeyaan aan u sheegno wixii dhimanna aan u baadi doono carruurtu waxa weeyaan waa carruurteennii mustaqbalka waddanku wuxuu ku xidhan yahay si carruurta loo ilaaliyo marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo nagala shaqaysa barnaamijkan inuu maanta qabsoomo oo ay ka tahay hay'adaha SOS iyo fanko soyka iyo ururada iyo guddiyada xaafadaha waalidka oo aan la'aantood waxa weeyaan aanay barnaamijka noo qabsoomeen ama aan xuska noo qabsoomeen waayo maalinta waxa gaar loo siiyey in xuquuqiyaadka ka dhiman carruurta lagu raadiyo in waxa ay tabanayaan lagu dhageysto markaa wasaaraddu mar walba waxay diyaar u tahay in tabashada carruurta la dhageysto maadaama daryeelka carruurta ay ka mid yihiin carruurta la dhageysto markaa waxaan mar walba diyaar u nahay in carruurta la dhageysto in xuquuqdooda kor loogu qaado in kelmadda ay leeyihiin maalintaa la sheego way jira caqabado fara badan waxaan anigoo jaalanka ka faa'iidaysanaya tacsuud dirayaa labadii carruurta ahaa ee shalay toban lagu aasay magaalada berbera kuwaasoo badda ku liqday maalmihii u dambeeyey baadagoobna loogu jiro oo reer berbera si weyn ugu kaceen waxaan ilaahay ugu baryay inuu shanafarda soo geeyo carruurta yarna waxaan leenahay waalidkii mar walba la tashada markastoo dalxiis u baxaysaan la tashada caqabadaha waxa weeyaan ka yimaada meelaha baddana ka taxadira oo iyadoo waalidkii aan ogeyn badda ha isku imaadeen ama ha tegina ilaa lana ogaado maanta waa maalin weyn koloo inta badan waxaa xooga lagu saaraa un in caqabadda carruurta lala tacaalo in farxadda lala qaybsado in kor loogu qaado waxa weeye xuquuqiyaadkeega sida ka muuqata boorkeena waxa weeye for every child every right in ilmo kasta uu helo xuquuq kasta marka xaq u leeyahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland
xeerka carruurtu inta waxay damaanad siiyeen oo xuquuq siiyeen carruurteena inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay biyo helaan intaba markaa dadaalo badan baa jira wasaaradda gaar ahaan gobolka saaxil anagu dadaalo badan baan samaynay waxaan tababaro u geysanay guddiyada xaafadaha ee ka shaqeeya arrimaha carruurta waxaan tababaro kala duwan siinay guddiyada waxaan tababaro siinay dhammaan social workers ama dadka u adeegay arrimaha carruurta waxaan wax ka qaban oo wiil kasta ama bil kasta aanu caawinaa oonu taageernaa carruurta gaar ahaan kuwa xaafadaha magaalada berbera ku nool iyo gobolkaba kuwaasoo kolba xaaladda ay ku sugan yihiin wixii awooddeeda aan ka qabano ma oran karna boqolkiiba boqol wad caawinaa laakiin intii ilaahay noogu soo dhiibo iyo intii aan u hadli karnaba wax waanu ka qabanaa waxaa naga go'an in carruurta gobolka saaxil noqdo carruurta adduunka ugu fiican horena kaalinta koowaad ugu gashay si ay sheegeen hay-adda qaramada midoobe unisef oo shahaado sharaf ay ku helnay dadaalka carruurtana waxa weeyaan waxaa loo tababaray guddiyo kala duwan waxaa loo tababaray aqoon-yahaniin fara badan oo ay social workers ka mid yihiin taasna waa dadaal badan oo socda waa la sii labalaabayaa dadaalka arrimaha carruurta waxaa lanaga doonaya oo lanaga codsanayaa in qof kastaaba ilmaha ilaaliyo oo xuquuqdiisa ilaaliyo kanaafada xuquuq gaar u leeyahay wuxuu u baahan yahay in goobaha waxbarashada loogu sameeyo meeshuu ka geliyey wuxuu u baahan yahay goobaha ganacsiyada inuu helo meeluu ka geliyo markaa carruurtu waxa weeyaan waa nolosheennii waa mustaqbalkeennii qaab kastoo aynu u daryeelno waa qaab kastoo waddankeenu noqonayo waxaan rajaynayaa in daryeelka carruurta lasii kordhin doono in xuquuqdooda wax kastoo xuquuqu leeyihiin la siin doono wax kastoo diintu siise la siin doono wax kastoo kor lagu qaadayo noloshoodana insha allah aynu isla waafiqi doono kor u qaadi doono waynu ognahay waddankeen waddan la ictiraafay maaha wax badan ma dhiman laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in wax badan isbedeli doonaan waa haddii dadaalka la sii wado waa haddii waxa weeyaan dadaalada la sii wado waa haddii iskaashano adugu wasaaradda keliya waxa ma qaban karto dowladda hoose keliya waxa ma qaban karto laakiin marka la iskaashado dowlad iyo shacab iyo hay'ad iyo cid kasta markaa arrimaha ka shaqaysa haddii la iskaashado horumar baa la gaadhayaa guul baa la gaadhayaa carruurteeda naafada daryeel bay helayaan markaa imika waxaa socdaa ansixintii xeerka carruurta naafada ah oo siinay xuquuqyaad fara badan golaha baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa inay xeerkaa degdeg u ansixiyaan oo hortooda yaala kaasina wuxuu damaanado qaadayaa in goob kastoo waxbarasho goob kastoo ganacsi guri kasta laga helo adeegyada qofka naafada ah markaa maanta waxaan aad iyo aad u hambalyaynaa carruurta somalilan carruurta gobolka saaxil waxaan leenahay hambaliyo caafimaad ku waara horumar ku waara waxbarasho ku waara halka aad doonaysaa in ilaahayna gaarsiiyo kuloo hadal badan ma yaalo waxay ka dambaysay mas-uuliyiin fara badan aad iyo aad baan u salaamayaa waan soo dhoweynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu